aqoonin sida saxa sidaan uu inay ka fadhiisto kaliya kaamiradan ka hadla kaliya aan ka hadlo awood muu lahaa jiri waan baqi jiri waan cabsoo jiri barnaamijkiisa iyo maxaa lahaa saaxiibkii baana balbalaar okay barnaamijka aan caawani wado waa barnaamij aad iyo aad u culus waxaan rabaa inaan ka hadlo dadkii wada shaqeysanayo ama dadka shaqeysanayo ama dadka isfahmeen ama dadka isjecel ama dadka isla socdaan ama dadka iska warqabo ama dadka is aamineen ama dadka kalsoonida isku qabaan maxaa loogu dhex shaqeeyaa maxaa loogu dhex shaqeeyaa intaas aan rabo inaan ka hadlo labada qof kalsooni marka isku qabto waxaa loogu dhex shaqeeyaa kalsoonida isku qabaan inay burburto labada qof isjecel waxaa loogu dhex shaqeeyaa inay isnacaan labada is aamintana waxaa loogu dhex shaqeeyaa in ay is aaminin labada horumar gaartana waxaa loogu shaqeeyaa inay horumar gaarin waxa waa horta cadowga meel walbo galaa maanta waxaan aad iyo aad ugu xumaaday muuqaalkii xali soo dhigtay durdur media oo ku saabsan baana balbalaar oo dad badan wacay misna oo dhaheen kasoo tag durdur media why maxaa ninkaas ka rabtiin maxaa ninkaas loo wacaa maxaa la iskugu diraa labada qof saaxiibaha maxaa dagaal cusub loo abuuraa ninkaas baana xasan toob ayaana baray xasan toob janaalkiisa ayaana ku barateen xasan toob ayaana ku aragteen shalay intuu durdur imaanay maxaa u raaswaaseen maxaa u cawaaseen maxaa u soo dhaweyswaaseen maanta durdur markuu aaday ma wicnaysiin war dagaalka joojiya aniga qofna ma ku dambaabi karo laakiin intii wacday waxaan leeyahay faraha ka qaada dadka walaalaha isku dirina dadka isfaami ha qasina dadka isla shaqeeya ha kala geenina خلاص hal mar baana oo cawaadayo codkiisa ila dhageysta adigana daawadayaal mucjisada meeshan taala xamar waayaabaysiin meeshan wax la qasooya ani ma fahmin saana wax loo wareejiyo oo baabalo wayka ma xastara ya akhi lama qof maanta dhan in la isjiijiido war dagaalka maxaa ka heshiin adiga ma baabani faham waaye war ninkaas asaaba lug i gacan la gooy hadana oo sii dareysiin walaalayaal dagaalka iska daaya ya akhiyo war dad la cisho kara noqdo ya akhiyo dooti dagaal wax ma taraa ya akhiyo buuq i isjiijiid wax ma taraa ya akhiyo qabba i quruucna wax ma tareyso baana wax yar aan dhageysana hadalkiisa muxuu dhahay baana maxoona sheegay maxoona ka cawaday meeshan runta inaan ka hadlo waayo sababtoo ah teleefonadeeda waa la soo bacaa waxyaalo aan caadi ahayn baa lii dhahaa weliba caawa nambarada isoo wacayna halkan ka sheegayaa masajadooda waa lii tusayaa waxay idhahayaan baanaaw durdur maad ka tagtid shaqo waa la joogtaa xasatoob miyuu $150 kaa qaaday miyuu ku soo caanbixinowaa mise shaqaalaa tahay aniga maxaan ahay daawad i dhegeyso aniga waxaan ahay shaksi ka mid ah shaqaalaha durdur media group waxaan ahay shaksi ka mid ah shaqaalaha durdur media group waxaan ahay shaqaale ka mid ah durdur media group dhagahaaga dhageyso warka adaa kuu wadaa dadka soo wacayaan adaa kuu wadaa warka dhageyso waxaad ileedihiin baanaa mushaar ma qaadatay baanaa mushaar maxaad u qaadan weyse aniga waxaan ahay shaksi ka mid ah shaqaalaha durdur media group waxaad doonta aqaato wax kaama galin qalad ee ku tahay shaksi xasantoob jareer waa hebelo waa saas waa adiga maxaa u daba socotaa sharaf xumada ma iska qaadi waxaas ma jiro xasantoob waa nin walaalkayga ah waa nin isku meel ka shaqayno waa madaxdeeda shaqaala u hay shaqaalo waa u shaqeeyaa adaa ku hadlaya waan u shaqeeyaa xasantoob ma ka xuntahay
ma ka xuntahay macninkayga waaye hadal ma aqoonin sida sidaan inaa inta fadhiisto keligay kaamiradan keligay aan ka hadlo awood muu laha jirin waan baqi jiri waan cabsoo jiri runtigu imaada xasatoob haa waa macninkayga asaa maanta youtube ii soo fadhiisiin asaa ii soo fadhiisiin inta imaa idhay ka hadal fadhiiso shaqayso waayo markaa maxaad u leedahay runta waa arrin aad iyo aad loogu xumaado waa arrin aad iyo aad loogu xumaado ninkan masaakiinka ah baana waa wiil aad iyo aad u fiican xaqiiqda markaan igala hadlo waa wiil aan dirisnahay waa wiil aan isku xaafadnahay halahan sanaa diris ahayn hadda haloo durdurka shaqaynayo ilaa iyo ka hortiisba diris waa ahayn haloo durdurka shaqaynayo maalin walba waa is arkeyni hal beri ma dhihin xasan maxaa ugu tagtay hal beri maxaa kan u yeeshay macnaha ma fiicno qofka bini'aadanka shakhsiyadiisa inaa la faragashto qofka bini'aadanka hobbigiisa asigaa iska leh mee adiga ma leedihid kow qofka bini'aadanka hobbigiisa asaa iska leh ma ahan inaa oo laga daba shaqeeyo ama la dhaho adiga saan kuma fiicno asiga hadduu garan waaye wixii u fiican iyo wixii u xun waalidoo leeyahay ma ahan adiga inaa oo saan waay kan waay kidi waay qof alaal qofkoo noqdoba ani waxay iga tahay waano iyo walaaltinimo iyo wanaag ha laga leexdo qofka bini'aadanka haddoo meel oo ku qanacsan yahay meeshaas u daaya ninkan oo ujeediin macnaha dheeldheel ma u hadlaya si dhab ah xaqiiqdoo ka hadlaa haddaad dareemaysa haddii kale qofka bini'aadanka markii oo wax laga sameeyo waxaa la qiimeeyaa hadaladiisa baanaa 3 walxaadoo sheegay wuxuu dhahay xasan jareer waay maxaa oo la socotaa aale dheh yaab muwataas okay qofka wada shaqeeya hadday ka dhexaysa ka war mala shaqeysi karti maa leedahay okay dan wuxuu ku sheegay kaamir inaan soo fadhiisay shalay ma hadli jirin oo ku dhahay baad wuxuu ku dhooyaa macalinkeyga waay wax badan oo ibaray kaamir haddaan fadhiisto waa hadli karaa dadka waa iska dhacin karaa adi maa gaarsiisay waa maya xaqiiqdii okay waxaan kaloo rabaa wax yar baanaan igu soo celinaa xasantood jareer waay hebelo waay saas waay adiga maxaa u daba socotaa sharaf xumada maa iska qaadi waxaas ma jiro xasantoob waa nin walaalkayga ah waa nin isku meel ka shaqayno waa madaxdeeda shaqaalaa u maxaa ka rabtaa ninkan maxaa ka rabtaa adi maxaa ka rabtaa adi baanaa maxaa ka rabtaa waa u cadi maxaa ka rabtaa okay ninkan meesha wuu kusoo tegi xaqiiqiya ninkan meesha wuu kusoo tegi inkiis baanaa meesha wuu kusoo tagay adi maxaa uu qabanay oo shacbiyey mooho maxaa dhihi marka dhaadhaanaa tahaa dhihi moo ila meeloo joogay meeshii ha ka soo waday adna wax ma waaysa sida dadka qaarkood ku dhaceen adna wax ma weysid waa nin masaakiin ah waa qof degan waa qof bulsho jecel waa qof wanaagsan maasha allah maxaa ka rabtaa markaad oo wace wax ma weysidee maxaa ka rabtaa maxaana u sheegay bliis ninkan waa ka xanaadiseen baanaa caawo kaleexda ummadda ha dhibin war kaleexda ummadda dhaafa qofka haddaadan wax u qabayn faraha ka qaad aqoonin sidaan inaa inta fadhiisto keligay kaamiradan keligay aan ka hadlo awood muu laha jirin waan baqi jiri waan cabsoo jiri runtigu imaada xasatoob haa waa macninkayga asaa maanta youtube ii soo fadhiisiin asaa ii soo waa arrintaas waa xaqiiq baanaa ninkii aqoontiisa rabo degmada waa beri ha aado baanaa ninkii aqoontiisa rabo degmada waa beri ha aado sidoo noo sheeg waa run magac inoo sameeya ayurbia wadada ugu sahlanna woo hele xaqiiqdii waa nin oo iskuul soo bartay jaamic soo bartay wax soo bartay anigana markhaati ka ahay degmada waa berina imaw aniga haddaan been kuu sheegaya degmada waa beri imaw meesha kuu fudud aa istaagtid weydii ninkan yaa ka saale dheh sawirkiisa iska daaya magaciisa la weydii ama gurigood halee tilmaama dheh maasha allah waxa waaye dadka qaar oo waxaa jiro oo caan ah
fahmi asiga social media ku horo maasha Allah caan iska ahay waa nin la yaqaan baana laakiin waxaan jeclaan lahay saaxiibayaal inaan faraha ka qaadin qofka muslimka yaa dhibin labada qof isku jecelnayaa la isku dirin barnaamijka insha Allah waxaan jeclahay inaan halkan ugu baxo baaq culus oo diraa waxaan kaloo sheegaa saaxiibkay baana balbalaar adigana iska sabar saaxiibo dadkan u jeedaa bulshadan caadadood way ceebtooda ma ahan lama qof la isku diro lama qof dagaal la geeyo walaalayaal waan codsaa iska dhaafa wax muu qabanaysiin iska dhaafa ha khasina halaasaan codsiga okay kaamirada quruxda badan waxaan noo hayo Samir Antonio maasha Allah aad u maasan yahay sidaas iyo nabadgelyo daawadayaal